hadduu yahay gabar futada luxda iyo mid naaska luxdo wadaadkii dhihi karo ama agaasimaha muslimka ah ee telefishin madax ka ah dhihi karo gabadha waxba u qarsoonaay sheekh Shantaayow adiga ceybteedii banaanka keenay hadduu jiro waxaan diyaar u ahay baraha bulshada inaan iskaga baxo waxa marka la isku haystaa waxa waa ku soo wada sheekh Shantaay asluubtii rabnaa asluubta aad u martid in gabadhaas oo kale oo qaldan inaad rabtid inaad wax u sheegtid oo ay ka aqbasho dhahdo sheekh Shantaay wallahi wax ka maqnaa uu ku sheegay waa runtiis waxaan ka laabay inay dhahdo asluubta aad u martid ayaa wax ka taagan yihiin oo dadka ay sidugsan yihiin may ma aha waxba kama jiraan nin iska bulaa wali ma ka hadashay mawduucan hada gabadha aad leedahay naaskay waxay gelisay baastamir gelisay wali ma ka hadashay waa ka hadlay qaabkay uga hadashay waxaan uga hadlay naaskii ay baastamirka gelisaan tilmaamay waana sharci weeyaan way wax u qarsoon male gabadha maxay qarsatay gabadhaas markaad naaskeedii ku mashquulshay ma sii fogeysay mase gabadha waa soo dhaweysay ma fogeynin anigu munkarkeedii ka hadlay sheekh Shantaayow ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay ud'u ila sabiili rabbika bil hikmati wal maw'ida al hasana xagee kaga jirtaa xigmad iyo maw'ida hasan ah xagee kaga jirtaa gabadha naaskeedii inaad sii caysid inaad maaragtay qof inaad u hanjabtid inaad qof maaragtay samayskii alle uu sameeyay tusaale ahaan adoo baabajay lugtiisii caynaya lagu hayaa inaad see wacdi u tahay oo qofkaas maaragtay sidee ula talisay sidee xumaan uga reebtay sidee wanaag u fartay الله رب العالمين وحوري وجادلهم لضوت بالتي تيكل ضوت هي أحسن شو جدي شاق وشاجرهم ما أهلكين لمرن ما أها شيخ شنتاي قبل عن كهرنو تسألوني كلا عن سوق هذا شيخ شنتايو وحد دور جر موضوعي وقاعدتي هذا عدي أي جيران إن عاد محاضرين دوبتي لما هايو أما ويريهن هذا يريهن حتى أنا ما أركن هذا الصلاة كهذا هايو soonka ka hadlaya xajka ka hadlaya cibaadaadka dadka ka hadlaya si guud uga hadlaya dhibaatooyin maaragtay ama dhaqan ah ama wax kale ah oo bulshada muslimiinta ah adoo ka hadlaya laakiin waxa lahayd adoo sifaadka shakhsi ama shakhsiyaad ka hadlaya sabab maxay u dhacday aad ku mashquushid dadku waxay aaminsan yihiin oo leeyihiin sheekh Shantaay wuxuu rabaa ciwaanadiisa inuu ku kala kacsado bismillah horta saxaafadda Soomaaliya wanaaga ma aragto anigoo toddoba fadhi oo akhdaafi salaad aan kaga hadlay baa lahaya baraha bulshada taalo ya nin hurdaaya ay korontadiisu ay joogto ay alaabtiisu ay taagan tahay gabar muslimada inay u gasho anigu ma hayo agaasime waana ku faraxsanahay inaad qosasho maya waa dhaqan xumane qof kasta oo ragga waa la yaqaan qof kasta oo hurda alaabtiisa maya sax waay taas